assalaamu calaykum mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada macadka darwiish academy waxaan weli ku guda jirnaa patniskii ama calaamadihii suuqa uu sameynayay qaybtii koowaad labadii qaybood oo u kala qaybino ahayd continuation patterns iyo reversal patterns-ka waxaan ka soo qaadanay inta kuwa dhaqaaqa sameeya mar walbana indhahaagu qabanayaan istaraatiijiyada darwiish strategina u ah udub dhexaadka marka continuation patterns-ka oo dhan labadaas baa aad u arkaysaa mar walba muhiim ah kuwa kalena waxaad ku dheehan doontaa iyagoo qoran oo tafatiran oo pdf ah baad helaysaa balse qaybta tan reversalka waxaad ku arki doontaa kuwo badan oo taxana oo mar walba suuqa aad ka arkaysid labada u horeeya mar walba suuqa aad ka arkaysid oo saameynta lana waa ka hadlaynaa balse marka aad ka hadlayno continuation patterns-ka mar walba waxaad arkaysid waxa weeye waa flag bullish flag iyo bearish flag iyagoo faahfaahsan iyo qaababkay u dhacaan oo aad fahantid mid walba markuu flag ku dheeraado inuu noqonayo 50% usoo dhacayo mar 70 mar 10 iyo qaabka usoo dhacayna horeyba uga soo hadlay oo continuation patterns-kii horaan kaga soo hadlay hadda waxaan ka hadlaynaa marka reversaliskaan soo gelaynaa waa maxay reversal pattern marka patternsku reversal patternsku waxa way kuwa suuqa kala wareejiya oo jihadu suuqa hadduu sell ku socday u wareejinaya buy hadduu buy ku socdayna u wareejinaya sell u wareejinaya way marka iyagaan ka hadlaynaa waxaan ka soo hadalnay trend line-kii waxaan ka soo hadalnay qaybihiisii kala duwanaa iyo meelaha saxda la dhiganayo patterns-ka ku jira sababtoo ah trend line-ka markaad fahantid baa misna waxaad arkaysaa sababta trend line-ka waxaad sawiraysaa meeshii sare iyo meeshii dhexe dhexdiisa maxaa ka dhaca meeshii sare iyo meeshii hoose sawiranaysaa trend line-ka dhexda marka waxa ka dhacaya way patterns mar walba waxay ka dhacaan trend line dhexdiis bay ka dhacaan haddii kale ay dhaafayaanna waa mar ay trend line jabsanayaan qaabka iyo wax oo dhanna waan ka hadlaynaa balse patterns-ka qaybta waxa weeye reversalka samaysaa hadda maraynaa iyagoo faahfaahsanna waan ka hadli doonaa marka waxa weeye ila socda waxaan ka hadlaynaa laba garab iyo madax waa maxay laba garab iyo madax marka waa qeexaynaa labada garab iyo madaxu waa wax muhiim ah oo qofku haddii uu fahmo iyaguna waa qaab dhismeedka dabiiciga ah oo suuqu uu dhismo calaamadaha uu suuqu sameeyana weeye iyagoo faahfaahsanna market structure-kana waa ku arki doontaan ee qaybta sare okay qeexid marka calaamadda laba garab iyo madax waa calaamad mug iyo miisaan leh oo aad muhiim u ah marka suuqa forex la joogo marka ay calaamadani qaab dhismeedkeedu ka samaysmo hoos waxa ay ku muujinaysaa in suuqu jihadii bedelanayo uuna aadayo buy marka ay hoos ka dhacdo oo uu dhammaystirmo qaab dhismeedka tusaale markuu saan oo kale yahay suuqani muxuu soo sameeyey dhaqaaq buu soo sameeyey xooggan oo wuxuu ku socday sell buu ku socday maadaama uu sell ku socday muxuu sameeyey sell buu ku socday waxaa samaysmay number 1 baa samaysmay oo ah qaybtii waxaa samaysmatay koowaad oo dhammaystiratay number 1 waa wejigii koowaad marka uu dhammaystirmay maxaa dhacay marka wejigii koowaad markuu dhammaystirmay waxa dhacay in misna uu dhammaystirmo halka waxa ka dhammaystirmay wejigii koowaad ujeedaan oo dhammaystiran kadib maxaa dhacay halkan number 2 dhacay halka ka dhacay soo taabto wejigii labaad baa dhacay يعني waa qaabka uu dhismo waa inaad fahantid laba garab iyo madax kadib madaxii
oo ah qaybtiisna saddexaad oo ah 3 kadib markuu qaybtii saddexaad isna saa noqday maxaa dhacay wuu dhammaystirma qaybtii saddexaad soo ujeedaa soo kadib waxaa halkaa ka dhacay qaybtii afraad waxaa samaysmay 1 oo ah garabkii bidix baa dhammaystirmay kadib maxaa samaysmay oo 2 baa samaysmay halkana inuu soo taabtay oo ku laabtay neckline-kii oo ku tusinay inuu samaysmay halkaa soo taabtay kadib 3gii oo ah madaxii baa isna qaabkiisi dhammaystay oo dhammaystirmay kadibna halka ku laabtay oo 4 okay maxaa marka samaysmaya qaybtii shanaad baa iyana samaysmaysa oo ah garabkii midig oo 5 kadib maxaa sugaysaa qaybtii lixaad oo ah suuqu inuu jabsado halkan see u cabiranaysaa halkanaa ka cabiranaysaa sababtoo waxa og tahay qaybta lixaad inay dhacayso sababtoo ah laba garabkii bidix baa samaysmay madaxii baa samaysmay garabkii kale midig oo dhammaystiran baa samaysmay maxaa sugaysaa inuu suuqu jabsado halkan tanna waa maxay waa qaybtii kale oo lixaad oo dhammaystirantay kan waa qaab dhismeedka uu u dhismo waxa la dhaho laba garab iyo madax hoos ka samaysmaya oo jihadii suuqani salbu ku soo socday u bedelaya jihadii buy si kale marka halkan aad arkaysid waxa ka dhacay waa flag marka aad fiirisid waxa halka ka dhacay flag baa ka dhacay maadaama halka flag ka dhacay uu dhammaystirmay waa sida kale ku cabiran kartid ilaa halkaas soo dhammaystiro inta tan oo dhan kadibna bartaa dhig waxa arkaysaa in ay isla eg yihiin si qurux badan hadaa u sawiratid adan ka dheeraysiin qaab dhammaystiran inay isla eg yihiin baa arkaysaa sababtoo waa muhiim mar walba inaad qaab dhismeedka fahantid tusaalahan waad fahanteen oo waa isagoo hoos ka samaysmaya laba garab iyo madax aan galno marka qaybta kale oo xigta oo ah laba garab iyo madax ka samaysmaya kor kan wuxuu ka samaysmay hoos buu ka samaysmay hadda kan waxa guda gelinaa marka isna qaabka uu samaysmo una dhismo qaabka uu samaysmo una dhismo waa inaad sugtaan istaraatiijiyadan marka wax badan bay kaa caawinaysaa iyo qaabka darwish strategy iyadoo faahfaahsanna u tegi doontaa markaad fiirisid halka maxaa samaysmay number 1 baa samaysmay wejigii koowaad baa samaysmay oo si qurux badan buu u dhammaystirmay kadib maxaa samaysmay wejigii labaad baa samaysmay kadib maxaa samaysmay wejigii saddexaad oo isna ah madaxii baa samaysmay oo dhammaystirmay kadib maxaa samaysmay wejigii afraad baa samaysmay oo isna dhammaystirmay halkan hadaa ujeedaa wejigii afraad baa dhammaystirmay oo isna samaysmay wuxuu kuu sheegay in madaxii dhammaystirmay kan wuxuu kuu sheegay in garabka midig dhammaystirmay kadib wuu dhaqaaqay wuxuu ku tusinayaa marka kan inuu dhammaystirmay wejigii shanaad marka uu dhammaystirmay maxaa dhacaya isna waxa dhacaya wejigii kale oo lixaad inuu isna dhammaystirmayo cabirkaagi soo cabiro sidii oo kale kadibna naga halka dhexdiisa cabiranaysaa madaxa kadibna 6 bib intaas hoos uga degaysaa ilaa 4 bib oo maxaa samaysmay halkana kii lixaad kan marka waxbaa la dhahaa break out halka sir baa idinka siinaya si fiican u dhageysta si fiican u dhuuxa sirta tan si fiican u dhuuxa halkan waxa la dhahaa tan break out ka kan marka dad baa waxay sugaan waxay dhahaan allah suuqii halkan wuu jabsaday waxa sugaya inuu bullback sameeyo may mar walba ma kadibna waxay arkayaan suuqii waana soo laabanayno si dhaqaaqa arkaysan tusaalahaasna waa idin tusayaa seeba uga taxadari kartaa tusaalaha darwish strategy waa kuu fududaynaysa oo see kugu fududaynaysa halka suuqu muxuu soo sameeyay dhaqaaq kadib muxuu sameeyay correction buu galaa suuqa halkan flag buu sameeyay soo halkan ka soo qaada marka
cabirkaaga halkaa dhigo maxaa sugaysaa dhaqaaq leeg inuu sameeyo continuation that's it ma sugaysa markaas wax la dhaho pullback you know impulsive correction continuation marka structureka suuqa baratidna waa qaabkaasoo kale saaxiibaya ila fahanto tanna sidoo kale wax pullback suuqa waxa waa iyadoo tusaale cadana waa in tusinayaa cabirka cabiro kadibna suuqa hore u sii raac targetkaagina uu ogtahay meeshuu ku yahay let's aan tagno marka iyadoo tusaale cad ah waxaan ku bilownay suuqa samaysmaya waxaan ku bilownay hoos ka samaysmayo kor aadaya suuq ku soo socday jihada ku soo socday sell balse aadaya jihada buy baa ka hadlaynaa hadda suuqani muxuu ku soo socday saaxiibayaal markaad fiirisaan suuqan waxaa arkaysaan inuu ku soo socday jihada sell uu ku soo socday markaad fiirisid suuqan inuu sell soo ahaa kadib muxuu sameeyey laba garab iyo madax buu sameeyey hadda ujeedaan laba garab iyo madax buu suuqi sameeyey kadib ilaa halka ka tegay maxaa halka ka aragtaa marka waa labadii garab iyo madaxii uu suuqu sameeyey si toosa marka si kale aan idin tuso okay structureka suuqa iyo soo jar structureka suuqa waa ka halkaas yaala structureka suuqa soo jar halka soo dhig waxaad arkaysaan inay isku mid yihiin labada sooma isku mid inay yihiin baa arkaysaa sooma laba garab iyo madax inay dhammaystiran qaab qurux badan u dhammaystiran sooma laba garab iyo madax haddaad fiirisid labadii garab iyo madaxii oo dhammaystiran midba mid kale leeyahay qaabkan waad ila fahanteen okay waa sida uu suuqu u samaysmo markaad baratid structureka kan meel walba baad ka helaysaa kuna arkaysaa okay qaabkan waa qaab dhismeedkii suuqii waad heshay sooma let's markaan kuu sharaxo suuqu muxuu sameeyey halka in dhaqaaq buu soo sameeyey si kale haddaa strategy kuu sharaxo kadibna muxuu sameeyey dhaqaaq kaluu sameeyey kadibna muxuu sameeyey suuqu wuu laabtay kala wareegay kadib muxuu sameeyey correction impulse kale qaabka si kale daafid kadib muxuu noqday waxaa arkaysay garabku marar wuxuu ku samaysmayaa correction kadib correction kale continuation waa qaabka uu u samaysmo suuq labada garab iyo madaxu okay waxaan dul istaagaynaa marka halkan okay waxaan dul istaagaynaa labadii garab iyo madax soo qaado calaamadaadii sawira marka suuq wuxuu sameeyey laba garab iyo madax leeg buu sameeyey ujeedaa suuq soo laba garab iyo madax okay halka haddaa ka guda galno marka casharkeeni waxaad arkaysaan suuqu waxa uu sameeyey naglaynkaagii soo qaado cabiro sidii aad kan u cabiratay oo kale naglaynkaagii ujeedaa soo suuqu ugu cabiray oo kale tanna u cabiro kadibna waxaad helaysaa sirtii oo dhan oo dhammaystiran kadib muxuu sameeyey suuqu saaxiib yaal halka wuxuu ka sameeyey dhaqaaq buu soo sameeyey sooma wuxuu sameeyey number 1 buu sameeyey oo dhammaystiran dee weliba wuu dhammaystirmay wankii muu jeedaa wuu dhammaystirmay markuu dhammaystirmay halka maxaa ka dhashay number 2 baa ka dhashay jeedaa wejigii labaad kadib maxaa dhacay wejiyada tanna qaybta sare baad ku arki doontaa kadib waxaa dhacday inuu suuqii madaxii misna samaysto kadibna uu madaxii dhammaystirmo ujeedaa sooma inuu madaxii dhammaystirmo isadana maxaa weeye number 3 kadib maxaa samaysmay garabkii kale oo midig baa samaysmay kadibna maxaa dhammaystirmay kii wax dhammaystirmay halkan markaad fiirisid kii afraad baa halka ku dhammaystirmay markuu madaxu dhammaystirmay kadibna garabkii oo ah kii shanaad uu dhammaystirmaysna halkana waa maxay waa 6 okay let's marka cabirkeeni aan cabirano halkana ka cabiratay tatan kaas dhaqaaqi suuqi markuu jabsay afar binta uga dhaqaaqday targetkaaga waa kaas halkaas intrigaaga ku noqotay meeshaas kadibna
uu ku dhaqaaqay suuqii si fiican oo qurux badan structureka hoostiisana stop loss kaa dhiganaysaa targetkaagina waa kaas exactly si nadiifa oo hufan baa faa'iidada ku qaadanaysa qaabka kale confirmation kuu noqonayo waa maxay bal ka waran qofkii dhahay anla suuqu wuxuu sameeyay dhaqaaq waxaan sugayaa pullback-kaan sugaya kadibna waxaan ka sugayaa suuqu inuu is dhaqaaqo maba soo laabanba u suuqiba ma ujeedaan markaas garashka kale kadibna uu sii socday waa the powerful strategy darwish strategy waadna arki doontaan sir badan oo suuqana waa heli doontaan halka markaad fiiriso suuqu muxuu sameeyay marka dhaqaaq buu sameeyay saaxiibaya yani awal marka hore maxaa cabiranay madaxii baa cabiranay ma ujeedaan kadibna suuqu wuu noo dhaqaaqay oo halka nuntay kadib maxaa cabiranaynaa marka waxa cabiraynaa qaab dhismeedkii suuqa cabiraynaa hadda marka wuxuu sameeyay suuqii halkan uu ka dhaqaaqay kadibna waxa cabiraysaa meesha jabsaday inay isla egyihiin baa ujeedaa confirmation aan caadi ahayn kadib marka haddii aad rabtid inaad ogaatid dhaqaaqa kan uu suuqu dhaqaaqayo dhan halka kasoo cabiro madaxii ilaa iyo dhaqaaqan uu sameeyay ilaa kan waad haysataa waad cabiratay halkan uu suuqu wuxuu ka galay markaa jahwareer yar ka galay ma ujeedaan maadaama halka jahwareer ka galay markuu jahwareerka ka baxo xaggee aadaya yani adoo cabirkaaga waa haysataa halkana madaxii waa cabiratay ilaa halka kale waa cabiratay kadib marka la isku daro cabirka kan impulsiga yani suuqa uu sameeyay iyo dhammaantiis marka la isku daro adoo hoos madaxii ilaa halka ka bilaabaya baa isku daraysaa saad ula sii socotay trade-ka usii haysataa haddaa swing trade tahay kadibna halkaa dhigo exactly waxaa arkaysaa meesha uu kuu gaaray inay tahay structureka suuqa sababtoo ah tani waxa ay la eg tahay tan adoo ka duulaya structureka suuqa mujeeda tanna waxay la eg tahay tan yani markaad fiirisay structureka si qurux badan u dhigatid wali wax yar kor u qaadi meesha structureka exactly waa tabtii kana qaad oo halkaa dhig exactly waa tabtii waa maxay waa market structure iyo sida loo cabirto intaasoo dhan imisa bii baa ka qaban lahayd waxaa ka qaban lahayd 1215 bii keliya adoo helay reversal patternkan oo ah laba garab iyo madax okay inta waa isla fahanay aan u gudagalno markaa qaybta kale ee suuqu marka uu ka samaysmayo kor laba garab iyo madax ay ka samaysmayaan iyagoo hoos ka samaysmaya waa isla aragnay mudanayaal iyo murwooyin aan aragno markaa isaga oo ka samaysmaya qaybta kale ee sare mar walbana waxay yiraahdeen trail line buu ka dhex dhacaa ma ujeedaan trail line kan uu ka dhex dhacay ma ujeedaan trail line kan waa reversal meel suuqa laga kala wareejiyay halkaasna laga soo kala wareejiyay aan guda galno marka okay waxaan guda galaynaa waxa la dhaho market structure-ka baad ku arki doontaan iyadoo faahfaahsan qaybta tan suuqa halka muxuu ka sameeyay naglankana noo cabir waxaan arkaynaa suuqu waxa uu halka ka sameeyay inay tahay laba garab iyo madax okay muxuu sameeyay suuqa u jeedaan structure-ka suuqa hadda soo jarno waxa uu noo sameeyay suuqani laba garab iyo madax buu noo sameeyay markaad fiirisid naglankana noo saar waxaan sugaynaa inuu halka noo soo jabsado si kale haddaad fiirisid isagoo jabsadayna waa kan oo noo dhaqaaqay ma jeedaa laba garab iyo madax suuqii uu noo sameeyay garabkii bidix madaxii kadibna dhaqaaq isla fahanay soo okay amazing waxaan guda galaynaa hadda marka qaybta xigta oo aan ku faahfaahinayno marka labada garab iyo madaxa kale suuqi wuxuu noo sameeyay laba garab iyo madax saaxiibayaal mudanayaal iyo murwooyin suuqi wuxuu noo sameeyay laba garab iyo madax waxaan cabiranaynaa marka impulse buu sameeyay suuqi correction buu kala continuation hadda saa u fiirisid mar walba garabku wuxuu ku sameeyay halka correction kadibna dhaqaaq impulse buu sameeyay aan dul istaagno marka aan cabirano cabirkeeni saan oo sideeni hore muxuu sameeyay suuqi waxa dhamaystirmay baa samaysmay oo ah garabkii sababta garabkii bidixdee yani marka fiiriso bidixdee ma jeeda left baa dhamaystirmay kadib waxa dhamaystirmay goortu garabkani dhamaystirmay waxa samaysmay wax la dhaho
garabkii goortuu dhammaystirmay halka waxa dhacay 2 sababta uu dhammaystirmay wuxuu kuu sheegay inuu dhammaystirmay kadib maxaa samaysmay madaxii oo isna dhammaystirmay halkana waa maxay waa 2 numberkii labaad kadib maxaa samaysmay waa madaxii halkaas waxa samaysmay wax la dhaho garabkii kale oo bidix laakiin garabka bidixintu dhammaystiran madaxii inuu dhammaystirmay halka waxa noo sheegaya xarafka afraad inuu wajiga afraad kala soo kadib maxaa dhacay waxa dhacay 5 oo ah inuu dhammaystirmay isna garabkii midig ee labaad kadib maxaa dhacay kii lixaad waa inuu jabsaday suuqa brackets halkana waa maxay waa neckline-kii suuqa ee aan hore idinku soo sheegay halkan ku sharaxnay neckline-kii aan halkan ku sharaxnay waa qaabka structure-ka suuqa neckline-kii okay marka aan cabirano markaad fiirisid okay cabirkeena noo soo qaad noo cabiran yahay kadibna meeshuu u jabsaday exactly waxa arkaysaa in uu si hufan oo qurux badan u tagay meeshii structure-ka suuqa ahaa si kale haddaan kugu dhigo halka suuqa wuxuu ka sameeyay dhaqaaq markaad fiirisid kadib muxuu galay suuqii correction buu galay halka ka galay halka kore haddaad ku qabadsiisid correction buu galay suuqii halka kale correction kale uu galay facaal flag buu sameeyay soo cabirkaagii halka dhigo exactly bartii buu yimaada suuqii target-kaagina saas uu kugu dhacay marka fiirisid waa market structure-ka iyo sida uu sameysmo iyo sida uu u dhaco fiiri hadda lacagtan breakout bay sameysay wax bulbaaga ma sameyn continuation bay sameysay si dhaadha marka suuqu ma sameeyo wax la dhaho ma sameeyo suuqu maanta inaad tiraahdid waxaan sugayaa bullback no waa fiiri structure-ka suuqa structure-dan waxa ka caawinaysa markaad fiirisid hadda day halkan suuqani muxuu sameeyay dhaqaaq exactly inuu correction halka ka gala waa arkaysaa exactly inuu halka correction suuq ka sameeyay kadib maxaa sugaysaa impulse kale inuu suuq sameeyo oo la eg u dhigmata tii kale ya marka hadda soo cabiratay halkaas ilaa halkaas waxa arkaysaa dhaqaaqa kan iyo dhaqaaqan inuu isleeyahay suuqii markaad fiirisid neckline-ka markuu jabsanayo waana qaab dhismeedka suuqa mudan ayaa liyo murwooyin labada garab iyo madaxu waa reversal patterns-ka ugu awood badan meelo badanna aad ka arki doontaan aadna heli doontaan laba garab iyo madax waa labada qaybood ee suuqa kan waxa way midna kor buu ka sameysmaa midna hoos buu ka sameysmaa kan hoos ka sameysmaa suuq ku soo socday salbu wuxuu u bedelaa jihada buy saa u wada jeedaan kana wuxuu suuq ku socdo waxa weeye buy ku socday bisal u soo kala weeciyaa u soo wareejiyaa oo u jeedaan marka suuqa mar walba oo aad baratid qaab dhismeedkiisa waa mar walba oo sirtiisa heshid iyo calaamadaha uu suuqu sameeyo patterns-kuna meel walba ay ka dhacaan waxa weeye waad aragteen waadna sii baran doontaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar iyo sirtii forex oo ka faa'iidaysataan macadka Marwo Shaqo Dibna uu farteeda ka saaray waa mahadsantihiin mudan